Tani waa hooyo Soomaaliyeed waxaa foolkeeda ka muuqda umal iyo rugo ula soo dirisay si kadis ah. Waxa ay weydaystaygeedii oo ay ugu dambeysay daqiiqada ka hor kadib intaan loo soo sheegin geeridiisa. Wuxuu ahaa darawal ku shaqaysa xirfadda darawalnimada oo waday mid ka mid ah baabuurta waaweyn halkaas uu ka dhacsan jiray biilka ciyaalkiisa. Waxaase dilay askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya oo ah kii loo wakiishay ilaalinta naftiisa iyo maalkiisa. Waxaa loo dilay wax uusan qaadanayn damiirkeena saxda ah. Waxaa la sheegay in lagu dilay qadar lacageed oo dhan $2. Halkaa waxaa ka soo baxaysa mahmaadii Soomaaliyeed ee ahayd meeshii cir laga eegayay ayay ciryaamo ka timi. waxaa kaloo meel lagaga dhacay hadalkii Ilaahay ee ahaa walaqad karamna ibnu aadanka waan karaamaynay. Qoyska ayaa dalbanaya helista mid aan looga baran Soomaaliya waa cadaalad waxay sheegeen inaysan meydka aasi doonin ilaa iyo laga soo qabanayo gacan ku dhiiglihii falkan geystay. Soomaaliya waxaa iska caadiya in qof intuu qof iska dilo dabadeedna uu cadaaladda ka dhunto. Maalin walba waxaa suuqa lagu dilaa qof shacaba oo waxba galabsan. Qoysas badan oo Soomaaliyeed ayaa dhibano u noqday ciidanka dowladda kuwaasoo maalin kasta si bareera suuqyada magaalada Muqdisho ugu dila dadka shacabka ah. Jidgooyada, cagajuglaynta, khashkhashaada, dhaca ayaa wax iska caadiya ka ah suuqyada magaalada Muqdisho. Laamaha ammaanka ayaan waxba ka qaban dilalkan soo noqnoqday ee ka dhaca magaalada Muqdisho kuwaasoo lagu beegsanayo dadka shacabka ah ee berimageydada aan waxba galabsan. Dadka reer Muqdisho ayaa daris la noqday cabsi iyo ciriiri joogto ah. Waxay maalin walba tacsidooda iyo qabrigooda joogaan mid ka mid ahaa oo lagu dilay bilaa micno isla markaana aan lahaynin ciddii dishay oo cadaalad raadinaya.